Bismillahirrahmanirrahiim. Saaxiibayaal, muuqaal kale cusub ayaan idin haynaa. Lacagtii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 5 sano ee lasoo dhaafay keedka ugu jirtay oo ugu dambeyn la leeyahay meel ay cirib iyo jaan dhigtay. Sidoo kale maamul goboleedyada oo war isku mid ah ka soo saaray 9 milyan ee laga baxay akoonkii dowladda Soomaaliya in la leeyahay. qodobyadaas iyo kuwo kale ayaan isla falanqeyn doonaa. haddii aad kanaalka cusub tahay fadlan subscribe saar muuqaalkan like garee. aan ku bilaabay lacagtii 9 milyan ahayd uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka tegay ugu dambeyn waa la cunay. maamul goboleedyada oo war isku mid ah ka soo saaray lacagtii 9 milyan ahayd in la cunay, sidoo kalena aysan jirin maamul goboleed lacagtaasi ay gaartay looguna talagalay in ay dadka awaaraha ugu baxaan. Tani waxay ceeb weyn ku tahay dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama lacagtii loogu talagalay awaaraha gaar ahaan uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo bangiga ugu tegay in la cuno, iyadoo la wada ogyahay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo 5 maalin keliya xilka dowladda Soomaaliya loo magacaabay ama loo doortay ayaa lacagtii la waayay isla markiiba bangiga laga baxay. waa waxyaabaha aadka loola yaabo in dowladda Soomaaliya lacagtii loogu amaaneystay inay halkaasi dhigto. sidoo kale waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ahaa Saciid Deni, maadaama oo shirka maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho uu kasoo qayb geli waayo lacagtaasi darteeda, iyadoo la wada ogyahay Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud inay ka mid ahaayeen shaqaalaha Imaaraadka oo soo dirsaday Soomaaliya. maadaama Fahad Yaasiin oo hore u sheegay intaani in ka badan waa la filanayaa, maadaama lacagtii khasnada dowladda ku jirtay 9 milyan ahayd ugu dambeyn la cunay. maamul goboleedyada ayaa maanta oo taariikhda ay ku beegneyd 14 Sebteembar waxay ka soo saareen war isku mid ah inaysan lacagtaasi arkin. lacagtaani 9 milyan ahayd waxaa la baxsaday xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo doornaa 5 maalin oo keliya. ugu dambeyn lacagtii barnaamij ku sawir ah ayaa lagu galay, kadibna sidaas ayaa lagu cunay. sababaha ugu waaweyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur loogu magacaabay guddiga awaaraha, sidoo kalena Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ugu magacdaray ninkaasi inuu u shaqeynayo sida voluntary ah. taasi beddelkeeda waxaa la xalaaleysanayaa in la cuno lacagtii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo khasnada ku reebay, iyadoo la wada ogyahay haddii lacagtaasi la cunay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayay ee ka horeysay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hogaaminayay. dowladdaasi inay ahayd mid ku sameysan musuqmaasuq, tan isagoo maanta uu hogaaminayo lana taagan yahay 2022 iyadana musuqmaasuq ay ku soo laabato waxay ceeb ku tahay Xasan Sheekh Maxamuud. inta badan quburada falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay leeyihiin dowladdii hore uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo midaan oo isaga uu hogaamiyaha u yahay wax farqi oo u dhexeeya ma jirto, iyadoo la wada ogyahay lacagaha inta badan ee lagu bixiyo xagga iyo miisaaniyadda awaaraha in mar walba la lunsado. sidoo kale waxaa jirto canshuurta dalka kasoo gasho inta badan in la lunsado iyadoo taasi uu ka duulayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. inta badan wuxuu aad uga soo horjeeday musuqmaasuq. waxay ahayd dowladda ugu horeysay ee la dagaalanta musuqmaasuqa, cid walbana way ka warqabtaa. ma jirin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hortiisa la dagaalanka musuqmaasuqa. dowladda Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladaha ugu badan ee lagu tiriyo inay ka mid tahay xagga musuqmaasuqa. sidoo kale liiska ugu koreeya ay ku jirtay dowladaha ugu musuqmaasuqsan ee qaaradda Afrika, iyadoo la wada ogyahay 5 sano ee lasoo dhaafay in kobaca dhaqaalaha ee dalka inuu kor u kacay. haddana ma jirin ayaa la leeyahay cid si toos ah markaasi dhaqaalaha dowladda u lunsatay. sidoo kale waxaa la leeyahay maxaa ku soo beegay in maamul goboleedyada in ay war isku mid ah ka soo saaraan, taasi oo ah inaysan arkin lacagtii ahayd 9 milyan. hadalkani wuxuu kusoo beegmayaa xilli 1 maalin ka hor oo shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay shirkaasi in arrimo badan loogu wada hadlay. taasi waxay muujinaysaa in shirkaasi uu fashil ku dhamaaday.
iyadoo taasi oo Caliyare mar hore sheegay wuxuu yiri shirkani kuma uusan dhamaanin si nabad ah ama si is-afgarasho ah. taasi beddelkeeda waxaa dhacday uu yiri Caliyare in aanan laga hadlin waxyaabihii laga hadlay ayna shacabka Soomaaliyeed filanayeen. taasi beddelkeeda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la soo hortagay in shacabka Soomaaliyeed uu hanjabo haddii 2 sano ee soo socota siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud ay sidaan ahaato dad badan waxay leeyihiin xilka kuma sinagaan doono. tani waxay og tahay midii 2017 isagoo la nacba oo ka degay xilka. sidoo kale cid walba way ka warqabtaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ee soo maray taariikhda Soomaaliya maadaama waxyaabo fara badan oo ka bedelay qaabka iyo hab maamulka siyaasadeed ee Soomaaliya. sidoo kale wuxuu ahaa macallin siyaasadeed oo laga barto arrimaha siyaasadda. taasi beddelkeeda waxay ka doorbideen qofka wadaniga ah inay ceeriyaan ayna ka doortaan tribalism iyadoo la wada ogyahay dowladani hadda dhisan inay ku dhisan tahay hab tribalism ah mana suurtoobeyso in ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale wax walba oo xagga faa'iidada ah inay wada helaan shacabka Soomaaliyeed waxaa la leeyahay waxaa heli doona dad qaas ah ama qabiil qaas ah maadaama dowladani ay ku dhisan tahay hab qabiil ah. inta badan sida laga warqabo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa xaraam ka ah ama ka xarimnaa inay musuqmaasuq sameeyaan dadka ka shaqeeya iyadoo la wada ogyahay musuqmaasuqa heerka uu gaarsiisnaa waagii Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka ka digaya 2017. sidoo kale waxyaabaha la yaabka lahaa ee la diiwaangeliyay waxaa ka mid ahaa Xasan Sheekh Maxamuud markuu xilka ku soo laabtay in beel la isku laabtay yacni hab beel in la isku dagaalo. dagaalka beelaha ayaa soo laabtay waagii Xasan Sheekh Maxamuud uu joogi jiray beelaha sidaas ay isku dagaali jireen kasoo bilaabo Shabeellaha Hoose, Galmudug iyo Shabeellaha Dhexe waxay udub dhaxaad u ahaayeen dagaalka beelaha. sanadkii 2016 iyo wixii ka dambeeyay dagaal beelaadka muusan ahayn mid wanaagsan laakiin markii uu yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd in dagaalkii beelaha ahaa in la joojiyay maadaama dhammaan la isku tanasulay ayna dadku u soo wada jeesteen patriotism-ka. inta badan waxaa la qiimeeyaa dagaalka beelaha ee ku dhexmara gobolada waxaa ugu dambeysay Galmudug. sidoo kale Shabeellaha Dhexe waxaa ka socdo dagaal beeleed iyadoo la wada ogyahay inta badan waxaa la isku dagaalaa awood qaybsiga. sidoo kale dhibaatada ugu weyn waxay ka timid doorashada Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo dad badan ay gadoodsan yihiin magacaabistii uu magacaabay